السلام عليكم صاحبي السو دhowaada kuna soo dhowaada barnaamijkeennii falanqaynta ciyaaraha qodobada barnaamijkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Badri oo magacaabay hal ciyaaryahan oo kooxda Real Madrid ah oo markaas uu soo qaadan lahaa hadii gacanta la gelin lahaa ciyaartooyda la soo qaadanayo ciyaaryahankan ayaan Madrid ka soo qaadan lahaa ay markaas leeyahay waxa sidoo kale inta aad ku maqli doontaan intuu barnaamijkeena hawada ku jiro Madrid oo caawa dhibaato badan wajahaysa Kylian Mbappe waa maqan yahay caawa waxa way walaayadan waxay saaran tahay ciyaaryahan Garcia oo markan ku soo bilaaban kara kulanka Madrid oo sidoo kale inta iyaduna doonaysa oo saxiixa iyo wararkaas ay aad ku maqli doontaa Durgu oo soo noqday Patrick Durgu oo markaas soo noqonaya xilliga sida rasmiga loo cilaamiyay in ciyaaryahankan uu soo loqdo ayaad marka ku maqli doontaa waxa sidoo kale ku maqli doontaa Guardiola iyo hamiga ugu weyn ee kubadda cagta Sportska oonana oo laga diray kooxda United isku-aadka Champions League kulamada caawa jira Madrid ay ku aadi kartaa hadii ay soo baxdo markaas sidoo kale inta sidee Premier League top 4 ka loo kala helaya iyo saadaasha ayaad ku maqli doontaa qodobadaas iyo qodobo kale saaxiibayaal soo dhawaada hadii aad tahay saaxiib horeyta noo joogay like iyo share tan ugu dadaal hadii aad tahay saaxiib nagu cusubna subscribe ka noo saar aad baa mahadsantahay in ku bilownay caawa wareega ugu dambeeyay bugbaha jambaha ayaa la soo gabagabeyn doonaa afar kulan ayaa markaas jira xalayto kulama ayaa la ciyaaray Bodo ayaana markaas ka yaabsatay kooxda Inter Milano waxa waaye xalayto kooxihii Talyaaniga oo dhan hal mar ayaa la wada diray oo lagu leeyahay Atalanta iyo Juventus iyo Inter Milan Inter waaba hartay Atalanta hore u hartay Juventusna caawi ciyaaraysayo laakiin 5 gool lagu leeyahay waxa leeyahay 90% inay harayso ay u badan tahay kalento xalayto Bodo ayaa iyaduna ka yaabsatay Intero waxa way waa la reebay aggregate 5 iyo 2 ugu dambeeytii Bodo ayaa ku soo baxday Bodo Glimt xalayto way yaabsanaysa Atletico la soo garaacay Man City la garaacay Inter lagu daray waxa way xilli ciyaareedkan waxa way mucjisada kubadda cagta ee jambaha waa iyada caawa kulama ayaa jira Atlanta iyo waliba Dortmund ayaa wada ciyaari doona oo waxa way wuxuu u badan tahay Atlanta oo ahayd kooxda ugu dambeysay Talyaaniga inay hari karto sidoo kale Real Madrid ayaa caawa Benfica la ciyaarayso waa kulan kale inta adag oo kooxda Madrid ay doonayso inay guul ay ku gaarto CA u xaqiijisato wareegeeda 16 tartanka macallin Jose Mourinho oo ka maqan kursiga kaydkana waxa way caawa ayuu la balansan yahay kooxda Madrid oo dib ay ugu soo noqonayaan inkastoo soo dhaweyntii uu ka heli lahaa Santiago Bernabeu waynayo sidoo kale inta derby ayaa ka jira Faransiiska oo Paris Saint-Germain iyo Monaco ayaa wada ciyaari doona hadii aynu markaasi ku nuuxsanno kooxda Madrid iyo wararka ku saabsan kulankan caawa hadii aynu ku nuuxsanno Madrid kulankii hore hal iyo ay ku soo badisay Vinicius ayaa 52 daqiiqo dhaliyay taasoo u sahashay guul weyn ay ka soo gaartay halkaas iyo Portugiiska tana uga dhignaatay inay Arguti ay ku soo samaysatay Portugiiska laakiin markan Santiago ayaa la joogay oo kooxda Madrid wuxuu u baahan tahay inay ilaashato natiijadeeda si ay ugu gudubto wareega 16 tartanka kulamada kooxahan ay iska hor yimaadeen marka loo fiiriyo kooxda Madrid ayaa markaas kooxda inta badan markaas garaacaysay oo 3 kulan ayba kulankan ayaa u noqonaya kii afraado 3 kulan oo horey ay u wada ciyaareen 2 kulan wuxuu ahaa kulankii ay Benfica 4 ku badanaysay kulan kale intan wuxuu ahaa kulankii Real Madrid hal iyo eber ay ku badanaysay halka kulan kale intan uu ahaa kulan saaxiibtinimo laakiin markaas ogsoonowe 5 ayaa lagu dhuftay kooxda Real Madrid oo Benfica 2 kulan oo horey u badisay kulanna Madrid ayaa badisay caawana wuxuu noqonayaa kulan kale inta xiiso loo labadani kooxood iska hor imaanayaan macallin Jose Mourinho inkastoo uu taagnayn liidinta laakiin waxa uu soo dirsanayaa kaaliyihiisa koowaad taasoo ka dhigan inuu banaanka ka daawanayo Madrid caawa waxay u baahan tahay inay soo baxdo natiijadeedana ay ilaasato inkastoo ay kulanku uu yahay mid aad u adag oo ay kooxdu wada ciyaari doonaan hadii aan wararkaas Madrid aan si raacino caawa waxa sidoo kale inta la leeyahay kooxda Madrid xaaladdu way ku adag tahay waxa ka maqan Kylian Mbappe ciyaartoyyahanka ugu goolasha badan kooxda iyo Champions League iyo horyaalkaba wuxuu maqnaanayaa baa la leeyahay dhaawac looga ayaa soo gaaray waqti dambe waxaana si rasmi ah loo cadeeyay in ciyaaryahankan uu maalmo maqnaan karo sidoo kale intana uu waliba dhaawacan uu keeni karo inuu xitaa isbuuciyo ama bilooyinba uu markaas ka maqnaado isla wararkaasi kooxda oo markaa ku saabsan hadii aan markaan hal mar dhinac iska dhignaba sidoo kale wararka kalento oo kooxda Madrid ku saabsan waxay markaas sheegayaan caawa inay kooxda Madrid ay u diyaar garoobayso wax walba sidii ay u sameyn lahayd si ay ugu guuleysato waxaana meesha ku jira ciyaaryahankii markaas cunsuriyada ku sameeyay Vini oo caawa dib ugu soo noqonaya garoonka inkastoo lagu arkay isagoo calaamitada sameynaya
haddana Mbappe hore wuxuu sheegay inuusan ku habboonayn Santiago Bernabeu soo galay ciyaaryahankan ugu dambeyntiina kasa ay Benfica ay u soo dirtay. Benfica qorshaheeda caawa waxa weeye in dhammaan taageerayaasha iyo waliba mataqaanaa focuska kooxda Madrid ba ay saarto ciyaaryahanka 25 lambarka 25aad ee Bristeli taasoo keeni karta in wajihada ka lunto kooxda Madrid. Juventusna andaya Benficana ay gaarto fursad kale oo guula una saari karto wareegga 16. sidoo kale Madrid caawa wararka kale oo ku saabsan laga soo sheegay waxa weeye inay doonaysay heshiis ay ku soo qaadanayso ciyaaryahanka qadka dhexe kooxda Paris Saint-Germain Fatinia. horay ciyaaryahanka wuxuu sheegay inuu jecel yahay ku biiritaanka ma xirashada maaliyadda Madrid, laakiin hadda uu ku faraxsan yahay Faransiiska iyo xilli ciyaareedka uu ku haysto. xidiga Portugiiska waxa lagu qiimeeyaa mid kamida ciyaartooyda qadka dhexe ka ciyaarto kuwooda ugu wanaagsan kooxda Paris Saint-Germain ee heshiis kula jira, laakiin waa xilli ciyaareedkan waxa la sheegay in kooxda Madrid ay si aad u doonayso lacag 100 milyan ayaa la xaqiijiyay oo dalaba in ciyaaryahankan loo diray. Fatini wuxuu noqon karaa mid kamida saxiyada ugu waaweyn ee suuqa kala iibsiga xagaaga soo socda, waxaana la sheegayaa in heshiiskaasi iyo wada hadalka uu haatanba socdo labada kooxood ba ay markaasi wada qaadan doonaan heshiiskan. dhanka kale Paris Saint-Germain ayaa iyaduna caawa ciyaarayso Monaco ay la ciyaaraysaa. kulankii hore wuxuu ku soo dhamaaday 3-2 oo kooxda Paris ay guul soo noqosho la markaasi gaartay. kulankan wuxuu noqonayaa kulan kale oo Monaco lagu ciyaari doono andee Parc des Princes lagu ciyaari doono hadii aynu aragno aragooda maadaama la Liga 1 ay ka wada dhisan yihiin waqti badan ay markaasi saarkeen labadani kooxood. saddexdii kulan ee ugu dambeysay hadii aynu fiirino saddexdii kulan laba kulan oo kamida Paris ayaa badisay, kulanna kooxda Monaco ayaa badisay oo xilli ciyaareedkan horyaalka Faransiiska waa ay markaasi kala qaateen oo kooxda Monaco hal iyo eber ay kaga badisay Paris Saint-Germain. sidoo kale Paris 4-1 ay u dhiibtay kooxda Monaco xilli ciyaareedkan horyaalka Liga 1 Faransiiska, halka guulka kale inta ay gaartay kooxda Paris ay tahay kulankii lugtii hore ee Champions League 3-2 guul soo loqosho la ay markaasi gaartay. waxaana wararka ay sheegayaan in macallin Luis Enrique iyo ciyaartooydiisa ay caawa doonayaan inay u soo gudbaan wareegga xiga. waliba wararka kale inta ee kooxda Paris ku saabsan waxaa kamida in Paris Saint-Germain hadda ay markaasi doonayso inay ku beegmato kooxda Chelsea oo macallin Luis Enrique wuxuu sheegayaa inuu jecel yahay hadii uu soo baxo wareegga xiga in kooxda Chelsea uu markaasi ku beegmo. wixii ku dhamaato barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaa. Juventus iyaduna caawa garoonkeeda ay markaasi ku ciyaaraysaa, laakiin 5 gool ayaa lagu soo dhiibay Turkiga. caawa Galatasaray ay u badan tahay inay u soo baxdo maadaama marka loo fiiriyo in farqi 3 gool ay kooxda kubadda cagta ee Galatasaray ay markaasi haysato. Oxono Juventus hore waxa uu doonaysay Osimhen oo kamid ah ciyaaryahanka weerarka ee kooxda Galatasaray, waxayna markale inta fiirin doonaan ciyaaryahankan qaabka uu markaasi ula dhaqmo. wararka kale ee ku saabsan sportska nihaya waxa markaasi kamida macallin Pep Guardiola iyo kooxda City. waxa la sheegayaa macallin Pep Guardiola xilli ciyaareedkan inuu yahay kiisii ugu dambeeyay oo kooxda Manchester City si joogi karo, laakiin waxa la leeyahay waxa uu leeyahay dream ama riyadaas oo ku saabsan inuu mar oo kor u qaado ama uu noqdo macallin ku guuleysta club World Cup-ka adduunka koobka adduunka inuu ku guuleysto macallin noqdo ayuu noqonayaa baa lagu leeyahay ama markaasi ku fakaraya, laakiin lama oga xulka uu qaban doono, xulka uu markaas kula guuleysan doono iyo xulka soo dalban doona. dhanka kale Marcus Rashford iyo kooxda Manchester United wada hadal ayaa u socda. ninkii Rashford ahaa waxa uu markaas leeyahay aniga si rasmi ah ayaan doonayaa ugu biiritaanka kooxda Barcelona oo haatan ama ku joogo. Barca waxay sameysay permanent markaasi heshiis permanent ay rabtaa inay sameyso ay ciyaaryahankan markaasi ku qaadato, waxayna doonaysaa in 30 milyan lacag ay markaasi ay sameysato. 30 milyan ciyaaryahanka ay markaasi ka bixiso, taasoo ugu dambeyntii u sahli karta in ciyaaryahanka si rasmi ah ugu biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona. dhanka kale isla wararkaasi Manchester Onana waxa la leeyahay boorsadaada banaanka ku taala. Onana waxa la leeyahay soo noqosho kuma taala halkan, Semi Lemanis ayaa jooga lagugu bedelay, boorsadaada banaanka ku taala. Manchester United waxay leedahay ma jirto wado aan markaasi Onana uu ku soo noqon karo boortiyeriga koowaad ee kooxda Old Trafford, inkastoo ciyaaryahankan uu amaah ku joogo kooxda Transport, laakiin hadda waxa la sheegayaa in United ay qorsheynayso iibinta ciyaaryahan Andres Onana.
wararka kale inta ku saabsan sportska aan markaasi inay hayo waxa markaasi kamida waxa jirta oobta inay markaasi saadaalisay xilli ciyaareedkan Premier League iyo kooxaha Champions League ama top 5 ka markaasi heli kara boqolkiiba boqol Arsenal waxa leeyahay top 5 keeda waxba markaasi ugama jabna qaaditaan waa meel gooniya marka horyaalka laakiin waxa la leeyahay inay ku guuleysato ama ay noqoto top 4 ka boqolkiiba boqol banaanka ay u taala Manchester City waxa leeyahay iyaduna kaalinta labaad 99 boqolkiiba waxa way kaalinteeda ama top 4 keeda way helaysaa kooxaha Aston Villa Liverpool Manchester United iyo sidoo kale Chelsea ayaana iyaguna markaasi ku soo jiro waxa leeyahay Aston Villa ayaa 3 ku dhamaysanaysa Liverpool 4 ayaa soo galaysa kaalin shanaadna Manchester United oo Chelsea waxa leeyahay xilli ciyaareedkan waxay aadi kartaa markaasi Europe League oo Europe League ay ka ciyaari kartaa sidoo kale inta waxa leeyahay wararka ku saabsan isla kooxaha Real Madrid iyo Champions League waxa leeyahay hadii Madrid caawa ay ka soo gudubto kooxda Benfica boqolkiiba 50 waxa laga yaabaa inay ku beeganto kooxda Manchester City oo labadan waxa way laba aan isku cusbeen xilli ciyaareed walba isku beegma waxaana markaasi ugu cansanayd tii markaasi Rodrigo fama xaaja cid walba markaasi way ogsoon tahay sidoo kale into Premier League Ingiriiska ayaa sidoo kale warar laga soo sheegaya waxa leeyahay kulamadan waa kuwa go'aamin doona xilli ciyaareedkan ku guuleysiga kooxda Arsenal ama Manchester City ciyaar koox walba waxa uu dhiman 11 kulan oo ay ku qaadan karto xilli ciyaareedkeeda marka Arsenal waxa leeyahay kulanka ugu soo horeeyo Chelsea ay la leedahay Brighton ayaa ugu xigtay Everton Bournemouth Man City Newcastle Fulham West Ham Burnley iyo waliba Crystal Palace hal kulan oo dheeri ay sii wadataa kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ay markaasi horumartay sidoo kale Man City Leeds United Nottingham Forest West Ham Chelsea Arsenal Burnley Everton Brentford Bournemouth Aston Villa iyo Crystal Palace labadooduba waa ay markaasi ugu jiraan oo waxa lagu leeyahay xilli ciyaareedkan wuxuu noqonayaa kulamo kale inta xiiso leh oo ay kooxahani qaadan karaan La Liga waxa uu bixiyay raali gelin kadib dhacdadii kooxda Girona iyo Barcelona kulankii ay wada qaateen horyaalka La Liga refereega ama gudiga garsoorka waxay sheegeen in kulankii goolkii laga dhaliyay kooxda Barcelona kulankii Girona 2 gool iyo goolka Echeverri uu markaasi dhalinayay inay ahayd gool qaldan oo ay kooxdu kubadda cagta ee Barcelona qaladkaasi laga galay waxaana markaasi leeyahay wuxuu ahaa in ciyaaryahanka Echeverri xitaa jaalo la siiyo goolkaas disallow la yiraahdo ama la diido laakiin waa ay dhacday wuxuu leeyahay waxaan rajaynaynaa marka in aysan dhibtaasi soo noqon VAR ayaana qaladkeeda lahayd ayaa la yiro ciyaarta aan soo dhexgalin oo markaasi offside-ka ku deysay Albitraho waxa way ku fasaxday laakiin Barcelona way ka jawaabtay waxay leedahay tani way dhacday waan u jeedaa hadartan horyaalka waan soo cishtay laakiin hadda kadib yaanan saas liigelin isla wararkaasi kooxda Barcelona ku saabsan ciyaaryahan Pedri waxa uu markaasi leeyahay waxa jira hal ciyaaryahan oo kooxda cadowgayga markaasi la jira kaasi oo aan jeclaan lahayn kooxdeeda lagu soo daro ama kooxdeeda markaasi lagu soo biiriyo wuxuuna leeyahay waa Kylian Mbappe oo kooxda kubadda cagta ee Madrid ay haysato waxa la yiraahdaa hadii aad ahaan lahayd markaasi qof ku soo biirin kara Barcelona ciyaaryahan yaad ka soo qaadan lahayd Madrid wuxuu leeyahay Mbappe cid kale shaki kuma jiro Mbappe oo kaliya ayaan ka soo qaadan lahaa Mbappe oo gool dhaliyaha ugu sareeyo horyaalka La Liga iyo waliba tartanka Champions League ciyaaryahankan ayaana 23 gool ka dhaliyay tartanka horyaalka La Liga 13 goolna ka dhaliyay Champions League Pedrina wuxuu leeyahay faa'iido ayay noo ahaan lahayd goolashaas hadii ciyaaryahankan uu nagu soo biiri lahaa Patrick Dorgu waa soo noqday baa leeyahay waxana la filayaa safka bartamaha bisha Abriil in la helo ciyaaryahankan wacdaro ayuu ku jiray ka hor inta aanu galin dhaawaca soo gaaray waxaan leeyahay qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ayuu ku maqnaadayo Man City Arsenal ayuu ka dhaliyay goolalo waxa waaye taasa keentay in ciyaaryahankan markaasi ay nasiib darro ku dhacdo kulankii xigay dhaawaca muruqa bowdada ayaa soo gaaray taasi oo keentay in dhowr toddobaad uu ka maqnaado waxana markii ugu horeysay ciyaaryahankan uu markaasi noqonaya mid si aad looga taba safka macallin Michael Carrick iyo kooxdiisuna waxay doonayaan bartamaha bisha Abriil in ciyaaryahankan ay markaasi soo galiyaan waxaana lagu leeyahay 10 kulan oo ay kooxda Manchester United hadda ciyaartay wax gool darro lama aysan kulmino 6 kamida waxa way waa ay badisay 4na barbaro ay gashay Newcastle laga badiyay Wolves Bridge la galay Leeds iyo Burnley ayaa Bridge la galay Man City la tumay Arsenal la tumay Fulham la tumay Tottenham lagu daray West Ham Bridge la galay waxaana ugu dambeysay Everton habeen dhaweyd markaasi la qaraacayo Michael Carrick waxa uu bandhigayaa bandhig aad u sareeya oo kooxdiisa oo markaasi la qaadanaya saaxiibayaal soo dhawaada hadii aad tahay saaxiib horeyta noo la joogay waxa leegtay shirta noogu
dadaal haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna subscribe-ka noo